دعوة هل كان قد دعوة إنسان وتيفي عالمي يونيفرسيتي في قبتي نورث أمريكا وأنيقوا سكريا هذا برامج كنا ماته وحو كسب سنة هدو إلهي كران الغضو أرماها قويسكا وحنا ماته نلجوغا علماء قبل كمينيسوتا علماء عنصن نورث أمريكا شيخ توكل يوسف أنا شيخ هذا لو يقان قبل كان أن يكون هاي هي نورث أمريكا شيخ على وحو كوعديا مساجدية قبل كأردن شيخ توكل كسر دبو يونيفرسال تي في بارك الله فيكم جزاكم الله خير ماته برامج كنا كسب سنة أرماها قويسكا وحدا سعوتها دبعتها فربضن إنه كشرو قويسك مركز سواش أقول رئيسة كويدينا وحوي محاكينا بربرك قويسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رنانتي آدبا إذن كوا أمانيا إن الطيب كقادتان إن لقاها الله الرماء قويسك مادام سين الله سعنه مركين ودمضان أين النمت خاصة نورث أمريكا وفاميلka burburkiisa aad u badanayo marka in laga hadlo oo la wacyigeliyo dadka inay qayb ka mid tahay cilinta ama garab istaaga qoysaska iyo sida loo xalin lahaa su'aashaada ay weydiisay hadaan u soo noqdo maxaa keena burburka qoyska runtii waa su'aal u baahan furuuc badan yeelanaysa waxaan dhihi karnaa waxa ugu horeeya ee burburka keena hadaan qodob u kala qaadno qodobka koowaad macaasida iyo dunuubta إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحا إذن أصيبا إذن كل عيه إذن إيمانيا أما بربر كواها كم من نقطة واحد دون تهاته ووحا يقعميه إنه كسبدين روانتي وحا لديه كراه مركا إنه أسوق قاعنا ودمدان أينو النمت إن أي فوضاتي دادك أقوانتي دينتا يقول هايين إن أي فوضاتي دادكي فملك أها وحياب بدنا معاسي وحمانة إن يكو كينتو بربرك قويسكا runtii waxa ugu horeeya qodobka koowaad aan dhihi karo marka aan in dheeyo aan fiiriyay waa macaasida iyo dunuubta wuxuuna keeni karaa si fudud inay qoysku kala tagaan hadii guriyaha islaamka kamid ah ay macaasi iyo dunuub iyo xumaan ay gasho way adag tahay tiirkii taagnida ahaa إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكوشيغا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون مودة الرحمة دي بالله ميسا سكنكي iyo xasiloonidii baa lumaysa waxa qulubti galaysa dunuubtu jirkay baabi'isa jacaylka iyo isu soo dhaweynta dadkay baabi'isa marka hadan soo aruuriyo waxaan dhihi karaa waxa ugu horeeya burburka keena waa macaasida iyo dunuubta sheekh tawakkal aad baa ma santa sidaagtay sheegtay hadaan arimaha qoysku waa arimo aad u far badan xilligii hore wadankeena Soomaaliya markaan joognay maamulka ama qoyska waxa maamuli jiray aabaha laakiin hadda qurbaha hooyadii baa maamusha run ahaantii waa iyaduna waa shay muhiim oo qodobka labaad oo in halkan ku tilmaami karnaa waxay ka mid tahay Ilaahay Quraanku wuxuu ku sheegay qawaamada iyo maamulka iyo qoyska maamulkiisa awoodda ugu sarreysa waxa la siiyay odagii baa la siiyay ama zawjkii baa la siiyay sida daraadeed markaynu qurba aynu nimid saddex qaybood bay u qaybsamayaan ruux isaga qawaamadii iyo maamulkii laftigiisa lumiyay oo ka tagay gabadhina ay ku qasbanaatay markaa gurigii maamulkiisii caruurtii tarbiyadoodii qoyskii hagaajintiisii intaba ay dhabarka u ridato ay sabab u noqoto markaa maadaama uusan ka qayb qaadanaynin qawaamadina uu lumiyo inuu qoyska ku burburo qodobka labaadna waxaanu dhihi karnaa gabdhihii markii wadamadan la yimid xorriyad aad u tiro badan la siiyay ayaguna tasarruf xadkii dhaafsiisan ruuxii u taagan qawaamadiisii إلى شان يحقوق ديسي تربية جورجي حقوق دي الأولى هذانا شيء كات حد كذب سن أو نفس سن قبل والله إيمان يسوع يظن إنه كنته إنه قويسكو كبر تصدحات أو كان يسوع لبعض ودي بين اللوميان قوام دي تاسو كنت مانتا ما دام إنه هذا من الصوت أي نجوجنا عرورات ترى بدن أي حرام تاي مرك أسبابها أسبوعي كنا بربك قويسكو حكلو كنا financial دين على العقد marka culimada masaajidka waxaad ka mid tahay gobolkani waxyaabo badanna waa xaliseen waxyaabo badanna waa xalin weeyeen marka waxyaabaha idinku fara badan ee dhinaca hadii laga fiirsho financialka ama lacagta la isku qabsado burburka qoyska ma keenaa runaantii waxaan dhihi karaa su'aashaasi waad asibtay wana qayb ay waxay soo hosgelaysaa su'aashii koowaad aynu tilmaanay macaasida iyo dunuubta ruuxii qoyskii waxa dhici karta in dawladii loo sheego been oo odagii separate uu noqdo
gabadhiina ay lacag ku raadsato kadibna macaasida iyo dembiga la galay oo been ay ku jirto khayaano ay ku jirto intaasoo nooc ay macnaha sababteeda ay keensan karto markaa in qoyska iyo arrimahaasi ay kusoo noqdaan kadibna ay noqoto in la isku qabsado xoogaaga yaraa ee gabadha lagu siiyo nooca sidaas ah iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha waxaan dhihi karaa weliba waa kaalinta labaad ama saddexaad ee arrimaha qoyska markaynu hadda waddamadan aynu joogno burburka keena sheekh tawakkal aad u mahadsantahay arrimaha qoyska marka xag dhibaatadu ma raggay ka timaadaa mise dumarka haddaan samayno wax la yidhaahdo aruurin inta aynu joognay waddankan aynu dacwooyinka aynu qaadnay waxyaabaha aynu gartooda galnay waxyaabaha aan diini ahaan u galnay markaynu fiirino waxaan dhihi karnaa 70% waxay ka imaanaysaa ragga 70% qiyaas ah waxay ka imaanaysaa ragga asbaabo badan bay uga imaan kartaa sabab waxay uga imaan kartaa isagoo qawaamadii la siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa u dhiibay ay ka mid tahay in laga doonayo sabarkii laga doonayo xuquuqdii gabadha ay ku lahayd laga doonayo xuquuqdii caruurta ay ku lahaayeen laga doonayo tarbiyadii mujtamaca kaalintu ku lahaa markuu qofkaasi lumiyo ay hoos u dhacdo inay timaado marka isqabsi badan isqabsigaasoo keenaysaa hadda waxaynu aragno iskuulaadka waxaa caruurta geynaya hooyaa u badan dugsiyada waxaa caruurta geynaya hooyaa u badan waxa raadinaya qoyskii iyo jiritaankiisii hooyaa u badan waxaa dhici kartaa in si fudud markaa sabarkii iyo adkaysigii loogu dhiibay inuu u sabro u adkaysto markiiba oo degdeg imaanayo furitaan ah maasha tawakkal laakiin haddaad fiiriso mujtamacan ku dhex noolnahay ama dadka Soomaaliyeed aad waxaad tir dugsiyadii yaa geynay soo lasma dhihi karo marka dumarka iyagaa dhibka keenay oo ragga ceyriyay lama dhihi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankuna uu noogu tilmaamay nabigana calayhi salaatu wasalaam wuu noo caddeeyey mar haddii lagu caddeeyana waxaa la rabaa qaabkii lagu caddeeyey inaad u qaadato kow waxaa naloo caddeeyey in laga abuuray feer qalloocan ay marna sina kugu toosnaanayn isqabsigu wuu imaanaya hadalka qalloocan wuu imaanaya inay macnaha wax badan xaggeeda challenge u ka yimaado wuu imaanaya laakiin waxaa intaasoo dhan lagu tusayay inaad yeelato sabar iyo adkaysi inaad u yeelato marka sabarkii adkaysigii ayaa waxaa ka lumaysa inuu la xisaabtamo inuusan u arag waxa lagu tilmaamay ay ka samaysan tahay oo mar walba nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam sina kugu toosnaan mayso sidaa ku hayso oo kula dhaqan oo macaashiro wanaagsan kula imo haddii kalena waxa weeye sina ku haddaad istiraada lafta qalloocan ee feerta laga abuuray toosi way jabaysaa jabitaankeeduna waa furnin marka masleedahay marka lafti laba laf ay noqotay markay qurbaha yimaadeen marka de waxa imaanaysa markii qurbihii la yimid qofkii qawaamadiisi lumiyey qawaamadii gabadhii baa qaadatay shaqadii waxaa laga yaabaa inay shaqaynayso waxaa laga yaabaa caruurtii iyo tarbiyadoodii iyo iskuulaadkoodii waxaa laga yaabaa noloshii guriga ah marka labadiiba shay markay isku darsato waxaa imaanaysa in la xisaabtamo waxaa guriga jooga ee ama aadaya subax iyo meelaha ka soo fadhi diriraya ee sheekaynaya noloshii guriga xagee ugu qaybsan yahay iyadoo gabadhii ay aragto raggii kale agiyaankeeda ahaa ama dumarkii kale la midka ahaa inay wax badan qabsanayaan marka waxaa imaanaysa ficiltan baa imaanaya gabadhii inay la xisaabtanto marka xisaabtankii waxaa imaanaya marka qofku meeshuu isxilqaami lahaa oo qayb ku qaadan lahaa noloshii inuu yidhaahdo marka gabadhiiba madaxa kugu taagtay kadibna uu yimaado isqabsi iyo furitaan degdega see lagu heli karaa marka qoys fiican awalan qoys fiican waxaa lagu heli karaa dariiqu nabigu noo tilmaamay sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu noo tilmaamay 4 xaaladood baa dumarka lagu guursadaa quruxdeeda waa lagu guursadaa xoolaha ay leedahay waa lagu guursadaa nasabkeeda iyo meeshay ka soo jeedo waa lagu guursadaa diinteedana waa lagu guursadaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diin ta diinta le dooro gacantaada ha borowde waxaa loo leeyahay ta diinta dooro diinta waxaa loo leeyahay waxay keenaysaa xaqa ay leedahay ayay garanaysaa xuquuqda lagu leeyahayna way garanaysaa aqoon diineed baa imaanaysa waxaa imaanaysa noloshii tarbiyadii iyo caruurtii qurbaha la yimid aqoontii diintii baa ka kabayso oo diintii iyo adeegideedii iyo tarbiyadeedii qaybtii lagu lahaayo xuquuqda ahaa oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qof kastoo idin kamida waa raaci oo waxbaa la raaciyay qof walbana wixii la raaciyay waa la weydiinaya haweentuna mas'uul bay ka tahay gurigii zawjka iyo caruurtii mas'uuliyadda marka waa mas'uuliyad in badan dayac uu ka imaanayo haddii caruurtii odagii iyo hooyadii ay kala tagaan waxaa imaanaysa caruurtii inay dayacmaan sida hadda noo muuqato aynu u aragno muuqaalkeedu meel walba ay ka muuqato qoysku burburkiisu aad u badan yahay sheekh tawakkal aad baa mahadsantahay waxaan rabaa kaloo inaan ku weydiiyo diintu islaamku waxay banaynaysaa ama sheegtay qofka dumarka inuu gurigiisa u joogo ninka raggana uu soo shaqeeyo haddii qofkii la yidhaahdo joog anaa kuu soo shaqaynaya waxaa rabtan oo ku siina laakiin ay tiraahdo maya waddankan western waaye meeshaan rabaan aadaya waxaan rabaa samaynaya soo imaan maayo marka burburka qoyska
waxaa keenaya burburka qoyska qodobkaas ka mid ah nood aan tilmaannay diinta keenaysa marka ruuxu qof diin leh uu doorto ama aqoontii diinta uu ku tarbiyeeyo gabadhu waxay garanaysaa xaqa lagu leeyahay xaqina waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiinna ku sugnaada gabadhu maaha inay guriga ku xirnaanayso dan iyo xaajo way u baxaysaa laakiin haddii noloshii laga kafaalo qaado oo ruuxii mas-uuliyaddeeda qaaday ama guriga aabbeed ha joogta ama zawj iyo gacantiisa ku jirto mas-uuliyadda haddii laga damaanad qaaday inay gabadhu gurigeeda joogta u khayr badan sidaasuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ammaanay dhibaatada ugu weyn ee taalla qurbaha waxaa waaye waa dhinaca caruurta isqa qabsiga caruurta waalidiinka qaarkood waxay doonayaan qofka dumarka inay caruurta haysato odagana uu habeenka keliya guriga u yimaado laakiin dowladda aana loo sheegin oo la dhihin aniga iyo waas qabnaa taana marka waxay keenaysaa in hodhoodii lacagtii la helay iyo waxyaabihii kale laisku qabsado marka culimo ahaan idinka arrintaasi se u tala ru'aantii waa waxyaabaha mashaakilka ugu badan ee hadda markaynu aragna ama aynu masaajidyada aynu joogno meelaha dacwada family issue aynu ku galno aynu aragno dacwooyinka aadka ah community ahaan annaga Soomaalida ceeb noogu ah maxaa yeelay qofka qawaamadiisa markuu u lumiyo waxaa imaanaysaa inuu gabadhii ay raadsato nolosheeda meel ay ku noolaato nolosha haday dawladdu u tagtana inay tiraahdo ma haysto qof ibeela oo marka ay qariso ninkii qabay ama ay tiraahdo waa kala tagnay ama ay tiraahdo separate baan kala nahay sababtii dhaqaalihii yimid ama laba qaybood bay noqon kartaa ama heshiis bay ku yihiin oo saa inay samayso de waa dambi lagu heshiiyey mar waa been weeye marna waa khiyaano weeye oo marna waa been oo beentu waa dambi kabaa'ira in la yiraahdo marna dhibaatay ka imaanaysaa oo ruuxii laftigiisa baa dayacayo mas'uuliyadii oo dhan xaqi ay soo heshay markaas xuquuqdii ay ku lahayd gabadha u goosanaya maxarka waxaan kula talin lahaa in badan aan kula taliyay oo qaybta cilaajka iyo daaweynta familka maxal lagu daaweyn doonaa baynu u tageynaa laakiin waxay ka mid tahay qodobada aadka dhaawaca ugu haya community-ga haddaynu joogno wadamada North America sidoo kalena Europe in badan aynu ka warqabno qorshahan ah in lacagahan aanan haddana meel gaarayno nafci aanan u lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka uu ku leeyahay fama utiitu min shay'in famataacu alxayaati dunya waxa la idin siiyo adduuna waa dhaldhalaalka adduunka wama cinda allahi khayru abqa waxa ilaahay agtiisa yaalla khayr badan baaqina ah waxyaabaan adduunka dhaldhalaalkiisa muuqaalkiisa gabadhu ay raadsanaysa waxa ka imaanaya waxa aynu hadda aragno oo ah in dhaqaalana aysan hayn gabadhii inuusan ninkiina dhaqaale uusan hayn wixii khiyaanadii iyo beentii la sheegayna xoolo xaaraana ilaahay subxaanahu wa tacaala markaba mana barakeeyo waxa laga yaabaa inay ku baaba'aan si sahla xaqiiqdii dhabtaana loo soo fariisto marka taas way tahay taagan sheekh tawakkal aad u maasad waxa kale oo jirta inaan rabo inaan ku weydiiyo waxa aad aragtaa caruur badan ay gaaladu qaadato caruurtaasi waxaa loo geeyaa dad aanan muslim ahayn dibka qoyska caruurtaasi labadii waalid ee dhalay haddii caruurtaasi ku koraan diin aan diinteena ahayn dib ma uga imaanaysa runtii waxaynu leenahay annaga dhan qurbaha joogno jaaliyad ahaana kala daadsanaanta jirta darteed hadday yihiin dhankii masaajidyada hadday yihiin dhankii community-ga arrimahaas oo dhan baa waxay keenaysaa in si fudud caruurta loo qaato waxaa la heli karaa dad midaysan hadday jiraan oo community-gu uu midaysan yahay haddii hooyo laga qaado in hooyo kale oo Soomaaliya loo geeyo ama qoys muslima loo geeyo laakiin maadaama burburka iska batay waxaa fudud maxkamadii iyo meeshii la geeyay inay fududayso cid kale oo mas'uuliyadii qaadi karta ama soo dalbatay oo xareysan in la siiyo marka waxayna ka mid tahay waxyaabaha aynu dayacnay oo burburka qoyska qayb ka qaadanaya community-ga baa burbursan burburkaasana waxay keenaysaa marka mas'uuliyad bay ka qaadayaan hooyadii keentay aabihii keenay waa laga weydiinayaa maalinka qiyaamo su'aasha ah ilmahaani si fudud ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcada uu u siiyey haddana imtixaan daba yaalo inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala maalka iyo awlaadda la isa siinaya jacayl ma aha waa imtixaan baa ka dambeeya imtixaanka waa la weydiinaya haddii sida uu ku guulaysto tarbiyadoodii iyo ilmaha akhlaaqdoodii iyo diintoodii uu hagaajiyo ajar uga soconaya oo hadduu dhintaa hataa sadaqa jaariya u tahay ilmaha ducadiisa gaaraya camalku uu qabtay oo wanaagsan baa gaaraya bilcagsi waxa marka haddii uu tarbiyadiisii uusan ka qayb qaadan oo uu dayacayna wax alla wixii xumaan ay la imaanayaan qayb ka mid tahay gaaraysa marka waa laga weydiinaya maalinka qiyaamo wax la shak ku jirin sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo child support qofka uu bixiyo waxaa laga soo gaaray dhinaca diinta islaamka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay dad badan oo waxaa jira marka waalidkii haddii burburkii qoysku u yimi in qofkii la yidhaahdo caruurtaadii wax siiso oo caruurtaadii lacag lagaga soo jiro waxaa jira dad badan marka qofka xaaskii hadday nin kala guursato ninkii hore qabay wuxuu leeyahay anigu nin baad guursatay asaga ha ku caruurtiisa iyo kuwa dhalaba ha masruufo diinta islaamka maxay ka qabtaa runtii waxyaabaha laftigooda hadda dhinac waxay ka imaanayaan in
furniinkii markuu batay gabadhii caruur wadata ay nin kala guursato kadibna mas-uuliyaddii saarnayd ruuxii uu ku qaydo ama uu yidhaahdo maadaama la guursaday waxa kaama saarno laba mid bay noqon kartaa ruux xilkasa oo garanaya mas-uuliyaddii xuquuqdii lagu leeyahay haday gabadhu markii hore gacantiisa ku jirtayna mas-uuliyad baa saarnayd caruurtana mas-uuliyad baa ka saarnayd biilkoodii masaariiftoodii marashadoodii wixii lagu lahaayoo dhan haddii la guursaday oo gabadhii gacantiisa ay ka baxday oo nin kale uu guursadayna caruurtii weli mas-uuliyaddoodii iyo xuquuqdoodii way saarantay hadduu isagu haysta iyo hadday iyada ay haysaba marka inuu guto waa shay waajib oo diinta lagu leeyahay taasaa keentay maanta hadduu diido ama uu la dhunto in si fudud maanta loo soo qabanayo oo laga qaadayo isagoo aan barya aysan ahayn maanta laga soo qaadayo xaqaasana kale laakiin tii diini ahaan isagu lagu lahaa markuu dayaca weeye qofka aanan tii diinta lagu lahay xaqii lagu lahaa uu garto u tago uu yidhaahdo mushaarkan qaatana waa intaa weeye xoolahan qaatana waa intaa weeye intaana waxaan rabaa inaan wax kula baxo laa shaka inay gabadhi u tacaatufayso oo waxa uu qaadanayo wax ka mid ah caruurtii ku wada noolaanayaan ay qaybinayso sheekh tawakal ma lasdhihi karaa marka culimo ahaan idinka culimadiina ayaa ka saxday inaad dadka wacyigelisaan dhibaatooyinkan arrimaha qoyska run ahaantii communityga burburay bay ka mid yihiin culimmadu haddii la fiiriyo mujtamaca soo qaxay soomaaliya ama wadamadan qurbaha la yimid burburka waa wada gaaray communitygo dhan qaybahan hadda culimmadu dadaalka ay sameeyeen oo dadku diinta ay la daba taagan yihiin oo masaajidyada ay dhisayaan wacyigelinta ah waxaan dhihi karaa dhinaca family issue-ga aad buu ugu yaryahay waxaa sabab u ah iyagoo aan culimmadu aysan u arag burburkaasi qaybta ugu weyn ee mujtamaca inaan la geyn run ahaantii waan dhihi karaa oo maanta masaajidyada u taagan waa laga hadli karaa laba qof oo is haysata dacwadooda waa loo kala qaadaa waa la dhageystaa haddii la isku celin karana masaalix baa la isugu celiyaa haddii aan la isku celin karin waxaa la raadiyaa dariiq kale ay ku kala tegi karaan laakiin waxaa yar in la badiyo seminaarada wacyigelinta qoyska oo aad loogu soo celceliya maadaama uu bulshada dhexdeeda hadda ka yahay hadduusan kaalinta koowaad ahayn kaalinta labaad uu yahay laakiin sheekh tawakal aad oo mahadsanta waxaa kaloo jira waxaa nalagu eedeeyay idinka haddaa culimo tihiin in aad 3 ilaa 4 aad guursataan oo burburka qoyska aad qayb ka mid tihiin oo markaad 3 guursataan 2 furtaan 1 haysataan haddana bisha kale ama 2 bilood kalena 2 kale guursataan haddana furtaan marka ma la dhihi karaa marka burburka qoyska idinkana hadda qaybtiina ka qaadatiin horaan kuu sheegay waxaan ku yiri culimadu qayb bulshada ka mid ah weeye qaybta bulshada ka mid ah laakiin waxaan dhihi karaa in badan maadaama ay huwan yihiin tiirkii iyo dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka in badan waxaa fuulaysa waxyaaba badan oo iska dacaayad ah waxyaaba badan oo ka imaanaya bulshada xaggeeda waxyaaba badan oo dhaawaca gaaraya qaybaha bulshada gaaraysa qaybaha ugu badan ee dhaawaca gaaraya culimmadu ka mid yihiin laakiin waxaad garan kartaa waxqabadkooda iyo mirahooda midka hadda muuqda inuu yahay culimmadu way guursataa waxaa la mid ah anoo kaleba haddaan ka soo qaado hadda tusaale dadkaa tilmaamaysa kuma jiro marka qayb leh oo awoodda ilaahay uu siiyeyna way heli karaan laakiin waxaan dhihi karaa waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo hadday jirto wey laakiin ma jirtaan dhihi karaano arrimaha qoyska aad dhex gashaan waxaa jirta waxyaabo fara badan baa gobolkan ka jira waxyaabaha idinku adag aad dhex gashaan maxaa ka mid runaantii waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu adag qodobka koowaad aan dhihi karo waxa weeye waxyaabaha midnimada masaajidyada haddii culimmada oo midaysan la helo maraykanka oo dhan marka inuu fiirino aragtida manhaj ahaan dadku way kala duwanaan karaan xarakaadkooda way kala duwanaan karaan laakiin waxaa ka dhaxaysa qadiya iyo arrin keliya oo muhiim ah mujtamacaan soo wada qaxay waxay u baahan yihiin baahi diineed baa haysa in la iska kaashado waxa la isku waafaqsan yahay oo la dhihi karo 99% waa la isku waafaqsan yahay oo sida loo daryeeli lahaa sida loo badin lahaa culimmadu inay fariisato sida loo badin lahaa in masaajidyadii la mideeyo culimmadii la mideeyo bulshadu hadday aragto culimmadii wada socota midnimadeedii aragtidaas waxaan isiraahdaa in muddo ah inkastoo ay hadda bilaabatay oo tallaabadeedu ay socoto laakiin waxaan dhihi karaa qaybaha ugu waaweyn ee adag ee bulshadu ay fiirsanayso dad la kala qoqobay oo la kala hayso inay bulshadii u muuqato marka waxaan dhihi karaa aragtida isu keenista caqliga culimmada la isu keeno waxay wax badan ka qabanaysaa jiritaanka bulshada sheekh tawakal aad oo mahadsanta waxaa jira mid aad ku guulaysateen oo ah duugta saxiix gobolkani inta anigu muddo 17 sano deganaa markuu qof dhinto dadka qabiilkiisa ayaa duugi jiray iyagaa lacagta bixin jiray laakiin maasha allah hadda sanadihii ugu dambeeyey waxaad samayseen duug ah in qofka dhinta masaajidka kaarmeel ku yaala la ogeysiiyo kadibna ay idinku qaadataan hooshii oo dhan arrintaasi ka waran runantii waa wax aada loogu farxo mar walba wax qabad muuqda bulshada wax u taraya uu soo ifbaxo
waxay farax gelinaysaa bulshadii waxaan dhihi karaa communityga ku nool khaasatan gobolkan Minneapolis waxaan dhihi karnaa ilaa 100,000 buu gaarayaa 100,000 waxaa dhacda qofka dhinta in laga qaado $5,600 oo lacag aad u badan dadkana ku badan dadna way haystaan dadna ma haystaan sidaa daraadeed waxaa dhacda mararka qaarkood marka qubuuraha aynu tagno oo janaazadii lagu tukado la duugayo ruuxiyo la duugay in lagu baryootomo la yiraahdo lacagtii lagu duugay xawilaad baa laga soo qaaday oo deen baa lagu soo qaaday sidaa daraadeed hal la bixiyo ay fududaato marka dadku si fudud inay u kala tagaan ama in muddo xawilaadii ay lacagta ku yeelato qoyskii soo qaaday ruuxantii dad khayr badan oo aynu u tuhmayna khayr badan aan ku tuhmayna arrinka u fikiray taageero badanna way ka heleen bulshada dhexdeeda ah arrinka markaynu u sacyinana waxa ka yimid in bulshadu go'aan lagu gaaro marka in la joojiyo lacagta tirada badan ee la qaado haddana waxaa aad u soo ifbaxaya in mar dhow ay heli doonaan communityga insha Allah tacaala khaasatan magaalada gobolka Minneapolis qubuur u khaas ah oo dadka ku duugaan haddana inta ay wadaan waxay ku duugaan dadku lacag la'aan waxa joogsatay marka arrimihii qabiilka ahaa iyo waxyaabihii qaaraankii qabiilka gooni loo aruurinayay waxaasna hadda way istaageen waana istaagayaan insha Allah hadda ma la isdhihi karaa marka isfaham culimadii baa yimi sidaa sheegtaba hadda waxaa jira 9 masaajid ilaa 10 masaajid oo isku yimi oo waxay samaysteen hal dalad oo ah in lacagta la helo masaajidadaas loo qaybiyo أول سيدي لو شيء جرى هالمساجد جماعة أول بمساجد العكتيس أروسين جرى لكن هذا كانتين إن إذا كبدت إذا أركان شعب كي سوماليات أرنت أتسمين سانو أرن أدو في عن إن مساجد إن نسكوي مادين سجال إلى 8 مساجد إن أتشكتين العكتي أتشين هذا أو سيدتن كون إلا سيدتن أفرتن كون أتبحسين مساجد البنا قيب أسيسين مركب مرسلي كلام مركب أرمها قويسك بكحية مرهدا تعد دبوشان ruuxantii qaybaha aan ku iri marka hore qodobka aan ku tilmaamo wuxuu ahaa in la helo midnimo masaajidiyaduna ay midaysan yihiin culimaduna ay midaysan yihiin midnimadaas oo ah in bulshada wax loo qabto maadaama masaajidiyadu dhaqaalahooda iyo lacagta ku socoto bulshada ay bixiso waxaan garanay marka inagu masaajidiyo 10 ah go'aan aan ku gaarnay inaynu lacagta kaliya masaajidada ka soo baxaysa hal meel ay soo wada gasho waa koow haddana bulshadii laftigeeda masaajidadii garab taagneed inaan masaajidadii la nacbaysin oo masaajidka 24 saac salaad walba hadii lacag laga aruuriyo oo dadkii wax la weydiiyo dadkii waxa qulubtooda ku yaraanaysa wadaadkii istaago wax wacdiyaba Soomaalidu waxay tiraahdaa wadaad wacdigiisa waxay siiba u dambaysa marka Soomaalidu uma mahayso marka hadii wadaad istaago wax wacdinayo waxa la isleeyahay talo gormu lacag weydiinaya marka arrintaas oo in badan daqasho badan aan ka dareenay yaan hadda waxaanu sameeyno qorshe ah in masaajidada dhan 10 hadda masaajid ee midoobay iyo kuwa hadda ku soo socdaba in laga joojiyo waxa la yiraahdo fundraising lacagaha la aruurinayo bishiina hal mal oo kaliya jumcaha ugu dambeeyo lacag la aruurin la sameeyo oo kaliya waa marka kaliya haddana dadkii la weydiiyo $100 oo kaliya meeshii oo la weydiin jiray $2,000 $1,000 $500 $300 $200 qofku isagu wuxuu tatawuc ziyaada la baxay mooyee inay noqoto lacagta aruurinayaan $100 taa hadda waynu ku guuleysanay bishii January oo horeysay lacag 85,000 baynu aruurinay masaajidiyadaas oo dhan hal mar la wada aruuriyay $100 dadkuna ay la tacaatufeen markiiba ay bixiyeen waxaad garan kartaa lacagtii dadka taleefanadooda la weynayay dadka taleefanadooda la weynayay ama la raadinayay hadda way baabaaday jamcihi baa waxa la helay markii 85,000 la aruuriyay ayaa 75,000 cash bay noqotay isla meeshii jimci baa lagu helay wixii kalena sabti axad bay soo xarootay taasoo ah raqbada ay u hayaan dadka waxa fududaatay marka in dadkii ay kalsooni ku qabaan marka qaabka wax u sameeyaan culimada ay kalsooni ku qabaan insha Allah tacaala hadana tafaaruqi oo kala qaybsan masaajid baba dhinaciisa ka aruursan jiray masaajid walba waan ka saxiixna inuu qorshahaani fulinayo saadaradeeda waxa fudud dadku inay ku cibaadaystaan masaajidada marka kadib lacagta la helo waxa la sameeyaa masaajidada say mortgage-ka iyo lacagta lagu leeyahay u kala badan taa loo kala siiyaa lacagaha lagu leeyahay bishii waxay noqotay 60,500 markii masaajidada 10 hadda aynu hayno lacagta marka la bixiyay lacagta soo aruurtayna ay noqotay lacag 80,000 ku dhow inta yar ee soo hartay 60,500 markii la jaray ayaa waxa loo siiyaa marka say iskaga bixin lahaayeen heatka iyo korontada iyo si siman baa inta kala hartay loogu qaybiyaa sheekh Tawakkal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka arrimaha qoyska xalka muxuu ku jiraa insha Allah tacaala horta xalka wuxuu ku jiraa waxa ugu horeeya inaynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqono oo dunuubta iyo macaasida iyo waxaynu ku jirno waxyaabaha burburka qoyska noo geeyay xoolaha xaaraanta ee tirada badan ee la qaadanayo khiyaanada beenta la sheegayo arrimahaas oo dhan qofka hadda ku jirna waxaan kula talin lahaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqdo Ilaahay isaga adoomada risaaqa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam law tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana haddaad arrimihiina Allah u tala saaran lahaydeen wuxuu idin irsaaqi lahaa sida shimbiraha u irsaaqo
seeba shimbiraha u irsaaqa subaxii buulkeeda waxay ka tagtaa iyadoo bog laalan oo caloosheeda aan waxba ku jirin waxay soo laabataa iyadoo dheragsan bakhaar uma yaal istoor uma buuxo meel waxba kuma oga dadku hadday arrintooda ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saaran lahay sidaas u irsaaqi lahaa baqdintaa marka aynu ka baqayna gaajada iyo cabsida ayaa ummaddu inta badan xarigga ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ka fogaadeen ayay waxay ku dhacayaan marka say meelo xaaraana wax uga keensan lahaayeen khayaano iyo isdabamaris u heli lahaayeen taasoo gubasho iyaga iyo carruurtooda ay kusoo laabatay taasaa keentay inay maanta magaalada Minnesota 4,000 oo carruur ah oo 15 ilaa 30 u dhaxaysa ay xabsiyada ka buuxaan qoysaskii ay ku kala burbureen ay ku kala tageen marka waxaan dhihi lahaa qof kastoo naga mid ah naftayda aan ka bilaabayo inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqono isaga adoomada irsaaqa isaga abuuray isagayna u laabanayaan ruux walbana maalinku xab iyo biyo ahaabaa loo qoray wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa marna ma gafayo marka si walbo aad marka ilaahay uga fogaato isaguna waxuu kaa xiranayaa qasnadihiisa caradiisana way kugu dhacaysaa marka waxaan dhihi karaa inaynu ilaahay u toobadkeenno aynu u noqono oo awood waxa ugu horeeyo ee nalka doonayo sheekh Tawakkal barakallahu fiikum jazakumullahu khayr